السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن دمان داودياش qiimaha sharafta loo idilaahantiinba ku soo dhawaada taariikh kooban oo ku eegi doona gobolka Banaadir magaalo madaxdiisu waa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho gobolka Banaadir waa gobolka ugu badka yar gobolada Soomaaliya uguna degmooyinka badan isagoo ka kooban ilaa 17 degmo oo kala ah Yaaqshiid Hilwa Kaaraan Kaxda Dayniile Cabdicasiis Howlwadaag Wardhiigley waa bari wadajir Xamar Jajab Xamar Weyne Shingaane Shibis Hodan Boondheere iyo waliba Dharkeenley wuxuuna dhacay koonfurta Soomaaliya waxaa daris la ah oo dhanka waqooyi iyo koonfurka kala xiga labada gobol ee kala ah Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose dhanka barina waxaa ka xiga Badweynta Hindiya bulshada ku nool gobolka Banaadir waa dad horumaray waxayna martigeliyaan Soomaalida inteeda kale waxay isugu jiraan dadka ku nool gobolka Banaadir kalluumaystay ganacsatada badan gobolka Banaadir waxaa la isku dhihi jiray qarnigii 19aad magaalooyinka Soomaaliyeed ee xeebta ku teedsan laga soo bilaabo Warshiiq laguna geeyo ilaa iyo Baraawe waana xilli ay gumaystaha Talyaanigu maamulayay Soomaaliya ilaa iyo horaantii madaxtinimada Soomaaliya waxaana xilligaas Banaadir la isku dhihi jiray saddexda gobol ee kala ah Shabeellada Dhexe Shabeellada Hoose iyo Banaadir balse waxaa la bedelay sanadkii 1982 markii ay dawladdu ka caanka bedeshay soodimihii gobolada dalka fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe tir kuma oo riix gambaleelka meesha sare kaga muuqda mahadsanid